degmo agaasimaha guud iyo injineerada shaqaalaha wasaaradda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. marka koobaad ilaah waa mahadle, marka labaad waxaynu mahad celinaynaa ilaah suurtageliya maanta inaynu munaasabadan inagoo nabad qabna oo wax cabsi aanaynu ugu jirin aynu isugu nimaadno horumar iyo inaynu ummadii ina dooratay aynu tacab ku soo celinno. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaya ilaahay. marka xiga carabtu waxay tidhaahdaa laa shukran calaa waajibak. waajib ma aha in wixii waajib lagugu leeyahay lagaaga mahad celin maayo. shaqadan waa shaqo ay qaranku lahaa marka horeba, waxaana jira priority kala mudnaan in la kala mudnaanaysiiyo. waxaan is leeyahay bridge-kani wuxuu ka mid yahay mashaariicda aynu ugu talagalnay qarankeenan. waad ogtihiinoo intaan joogay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ku dhowaad dhowr iyo 50 bridge oo noocan oo kale ah ayay xukuumaddani fulisay. ujeeddada ugu weyn ee aanu intaa u sameeyay marka waddo laga hadlaayo, waddadu laba ay u qaybsantaa. waa qayb structure ah iyo qayb waddada caadiga amba ha noqoto rigid amba ha noqoto flexible ha noqoto. qaybta daamirka la saaro idinku taqaanaan. qaybaha ugu muhiimsan waa bridge-yada. imika waxa laga qiimo badan yahay 10 kilomitir waddo caadi ah cag ahaan. bridge-ka sida loo sheegay waa 25 mitir. waxaan is leeyahay bridge-kaasi wuxuu ku soo kordhin doonaa magaalada inay u fido dhinaca waqooyi oo deegaan ahaan ku munaasib ah. dhulkaasi dhulbeereed maaha. dhinacan imika magaaladu fiirsa dhulbeereed buu ahaa, laakiin dhulkan waa dhulka adag. marka waxaan rajeynayaa inay magaaladu dhinacan u fidi doonto. gabiilayna iyo guud ahaan gobolka gabiilayna inay magaalada noqon doonto. waa la tartamayaa ee magaalooyinka tartanka xagga hore 2 iyo 3 baa la isku hayaa. 2 iyo 3 soo gali doonta insha Allah haddii la ka dhigo bi'ad ahaan iyo deegaan ahaan dad ahaanba. marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu mas'uuliyadda aanu qaadnay aanu maanta ilaahay noo suurtageliyay. bidina waa farxad labaadoo inta badan aan dadka la qabo. haddaad aragto dal wax horumari dadkuna waxay human noqdaan capital markay aqoon yeeshaan. maanta halka waxaan u fadhinaa 2 injineer oo labadooda dabadda inaga yimid Ingiriiska ka yimid. horta waxaan ogahay injineer Xamse oo ahaa ninkii design gareeyay bridge-kan iyo injineer Suruur oo la sheegay lafteedu inay ka timid iyadu ka timid Ingiriiska Mareykan. waxaan maanta haysanaa dad aqoon dhisma leh oo aan is leeyahay waa dadka mustaqbalka dhow insha Allah horumarin doona. ummaduna inta aqoon ku tiirsan tahay ayay horumar samayn ka doontaa. marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan injineeradaas aan maanta halkan kula kulmo. kama urur qabo in shaqadaasi si fiican inoogu dhamaan doonto. sababta markaan aqoontii iyo xirfadii baa hayno waxaan is leeyahay dhibaato inagu keeni mayso. idiguna reer gabiile ahaan runtii waxaan rajeynayaa inay idin tahay milestone labaad. nolosha horumarku sii socda. waxaa laga yaabaa 50 sano ka bacdi waxaan wax ka weyninay dadka inaga dambeeya ka fikiri doona, laakiin barbilow fiican inaan u sii sameeyno dad isku tashaday oo la isku qabtay noqdo. kulley Sheekh Suleymaan Saciid Cali xukuumaddan hal dhibaato haysata. dhibaatadaasi waxa weeyaan xisbiga kulmiye ayuunbaa kala dhaxlay. waalidkaana looma faano. annagu waxa weeye xukuumadda horena waan ka tirsanaa xukuumaddan dambena waan ka tirsanahay. marka ma faani karno haddaanu islaano faana. waxa jira wax la yiraahdo comparison waa sabab rodhig. maxay qabatay laakiin waxaan qirayaa yaa loo faani yaa se laga faanaya. marka runtii caqabada noocaas jirta. haddaanu xisbi mucaarada oo kale aanu kala wareegay xukuumadda waxaanu sameeyay comparison. laakiin anigu waxaan doonayaa maalin dhaweedo aan eegayay buugan la yiraahdo 2021 project handbook wasaaradda maaliyaddu samaysay. waxa mashaariic horumarineed la geliyay maaha mushaar iyo hawl socodsiin. lacag ku dhow 272 bilyan oo Soomaaliland shilin ah. waxay ka badan tahay 5 miisaaniyadood oo xukuumadda uduba inta mashaariic qor la geliyay. haddana laguma faani karaayo. maanta waxaan ognahay waxa sanadkan oo qura la dhisay ku dhawaad 5 isbitaal baa la dhisay. 5 isbitaal ayaa la dhisay. wali taariikhda Soomaaliland ma dhicin dawlad isbitaal dhistay MCH dhistay iska dhaafay MCH waxay noo dhisi jiraydo
cusbitaalka iminka meesha la yidhaahdo oog ka garadag ka baki laba hargeysa laga dhisay berigii galbeedkayga marka waxa weeyaan runtii marka ma faani karno oo waxyaabaha caqabadan waxa weeyaan maxaan yaan u faana xukuumadana waa xukuumadii kulmiye tii horena waxay tii kulmiye marka caqabadan oo caajisay kullu waxaan rajeynayaa laakiin waxaanu qiraynaa keegmayna xaggaas laakiin waxaanu aad iyo aad ugu niyadsannahay waa dawladda keliya boqolkiiba 16 lacagta miisaaniyadda qaranka u qoondaysay sanadkii hore 2021 kana nimka dhamaanayno horumar sanadka soo socda ilaahay waxaan ka rajeynayaa inay boqolkiiba 20 gaari doonto marka boqolkiiba 20 qayb kamid ah ayay u soo cimid xagga horumarinta mashaariicda horumarinta waxa laga yaabaa boqolkiiba 50 ilaa 250 waxay ku baxaan oo mushaharada ku dhawaad 50,000 oo shaqaale ah ayaa bil kasta ay xukuumadda mushaar siisa waxaad ogtihiin waxa dhacay caalamka dawladda dhanba dumay sababtoo ah COVID-19 awdi hal bil mushaar dib u mudheen hal bil ismeedo arag Soomaaliland leeyahay mushaarkii ciidanka la waayay mushaarkii shaqaalaha la waayay waxaad ogtihiin dalka inflation baa ku dhacay sicir barra dhacay wadamada qaar boqolkiiba 200 buu ku maraya wadankan in laga jaarka Itoobiya ka soo qaad lacagteena halkii bay taagan tahay 8% bay taagan tahay iyadoo aad ogtihiin caalamka caqabadu ku keenay cudurkan saf Mareykanka COVID-19 waxyaabaha runtii aan isleeyahay waxyaabaha la sheegi karaa kooban xukuumadana waxa ka go'an inay wasaaradda kasta ka hadasho wixii loo qabto wixii qabsoomay laakiin waxaan ku niyadsannahay inaanu ka soo baxnay waajibkii aan ummadan u qaadnay qofkuna wuxuu ku niyadsan yahay markuu xilliga waajibaad loo diray uu ka soo baxo kulli boqolkiiba 5 parasite ahaan jirtay parasite waxa waa dulun oo jeclayd in lacagta yar ee masaakiinta laga soo ururiyo in iyaga gaar jeebadaha loogu guro wayna caayayeen waan ognaytaa laakiin waxaan jecelahay boqolkiiba 95 ayaanu taabanaa noloshooda rasmiga marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu hawlahaasi ay noo suurta galaan ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa mashruucan oo dhameystirmay inaan isku iman doono oo xariga laga jari doono waxa kale uu ii sheegay Maxamed Amiin inuu isaguna damaanad qaaday wadadaas biriishka ku soo xidhmay sababta waxa weeyaan shaqadan isaga iska leh wadooyinka magaalada dhexda si waafaqsan xeer 56 iyo xeer 23 ba dhismaha magaalooyinka wadada magaalooyinka dhexdooda isaga iska leh marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay